cali xasan salaam hal iskama dilin. cali xasan salaam waxa loo dilay waxa uu sameeyey. waxa uu lahaa ruuxda sida nin musaaraca oo kale ah ama dadka legdanka ciyaara oo kale. waxa uu ahaa da'yar qurxoon soo jiidasho leh sin u lahaa burji. cali xasan salaam waxa uu ku biiray ururka xoreynta reer Falastiin PLO sanadkii 1963. cali xasan salaam waxa uu ku dhashay meel u dhow Jaffa 1940kii wuxuuna ka soo jeeday qoys ladan. Abiis xasan oo caan ka ahaa Falastiin waxa uu hormuud u ahaa kacdoonkii ka dhanka ah xukunka Britain ee dabiiqadii sodomeeyadii isagoo ahaa taliyihii ciidankii kacdoonka. kacdoonkii 1936 waxa uu iska bedelay mid ku salaysnaa diidmo madani ah oo nabadeed iyadoo uu isku rogay kacdoon hubeysan muddo bil gudaheed ah. kacdoonku wuxuu horseeday in la dhiso ciidankii jihaadka barakeysan isla waqtigaas. xasan salaam wuxuu ahaa taliye qaybeed ciidankaas ka mid ah. dad badan waxay rumaysan yihiin in caanimada cali xasan uu sabab u ahaa aabihiis laakiin aniga sidaas cagsiga ayaan u arkaa. halgamaa xasan salaam wuxuu ku mutaysay in taariikhda lagu xuso wiilkiisa dartiis. wiilkiisa cali xasan waxaa si weyn lagu yaqaanay inuu aasaasay Black September kooxdii hubisneed ee PLO. kooxda Black September ayaa sanadkii 1972 11 ciyaaryahan oo Israa'iiliin ah ku dishay magaalada Munich ee dalka Jarmalka. kadib weerarkii tuulada ciyaaraha Olimbikada ee Munich sanadkii 1972 Israa'iil waxay samaysay liiska 12 xubnood oo Falastiiniyiin ah. cali xasan wuxuu ahaa midka ugu horreeya liiska ay Israa'iil samaysay. sanado badan ayay Israa'iil doonaysay si ay u disho. cali xasan waxaa kaloo uu ku caanbaxay noloshiisa tamashalaha iyo caweynta ku dhisneed isagoo si weyn ugu dhex muuqday caweysyada Beirut. waxa uu ahaa nin wax iska cabinta aaminsan haddana nolosha aad ugu raaxaysta. sida aan aaminsanahay shakhsi ahaan ku raaxaysigiisa nolosha ayaa ah tan dishay. sababta salaamaha loo dilay waxay ahayd inuu ku jiray liiska dadka ugu sarreeya ee Mossad ay doonaysay. ha yeeshee noloshiisa tamashalaha iyo caweynta ayaa ka dhigtay bartilmaameed jilicsan. dhimashadiisa kadib waxaa la ogaaday inay jiraan waxyaabo badan oo la xiriira doorkiisa PLO iyo xiriirkiisa wariyaal caalami Mareykan ah oon horey u caddayn. tani waa sheekada xubin weyn oo ka tirsan PLO ama kooxda xoreynta Falastiiniyiinta toddobaatamadiina ee Israa'iil ugu yeeri jirtay Amirkii Casa. cali xasan salaam wax badan kama aqoon aabihiisii saameynta badnaa laakiin waxay u muuqataa inuu dhaxlay dhiiranaanta qaar aabihii. askarigii hore ee Falastiiniga waxa uu la dagaalamay maleeshiyaadka Yuhuudda sanadihii 40-meeyadii. howlgallada qaar waxay ahaayeen kuwo halis ah. xasan salaam waxa uu la socday Falastiiniyiin iyo qaar ka mid ah ciidanka dalagyadaha ku booday ee Jarmalka. waxaa samada loogu soo dejiyey Israa'iisha Falastiin. qorshahaas waxaa wadajir u maleegay Gestapo oo ah sirdoonka Jarmalka iyo wardoonka militariga Jarmalka ee xaruntoodu ahayd Berlin. waxa uu ahaa qorshe aad u xun oo la doonayay in lagu sameeyo ilaha biyaha ee Tel Aviv. waxay diyaaradaha qumaatiga u kaca uga soo degeen deegaanka Ariixa. waxay ahaayeen xasan salaam kabtan cabdiladiif iyo sarkaal Jarmal ah. qaladka koowaad waxa uu ahaa inaysan si fiican u aqoon gobolka. inkastoo mid ka mid ah uu yaqaanay haddana kuwa kale xataa sarkaalka Jarmalka ah ma aqoon. ciidanka dalagyadaha saarnaa isku meel kuma soo degin. kuwii siday hubka iyo dahabka waxay ku soo degeen meel kale. qaar ka mid ah xoolo dhaqatada ayaa arkay si ay u helaan dahabka iyo hubkana waxay ka warbixiyeen raggii la qabtay. Abu Al-Kafal iyo ninka Jarmalka ah waa la dilay. xasan salaam waxa uu suuro gashay inuu ku dhunto buuraha Qudus. waxa uu ku dhumanayay halkaas muddo dheer wuxuuna Falastiin u soo laabtay sanadkii 1947. waxa uu ku biiray ciidanka jihaadka barakeysnaa ee uu hogaaminayay Cabdulqaadir Al-Xuseeni. xasan salaam waxaa lagu dilay dagaal caan baxay oo la yaqaano dagaalkii Ras Al-Ayn. cali xasan waa uu yaraa markii la dilay aabihiis. wax badanna kama uusan aqoon aabihiis marka laga reebo sheekooyin ay dadka uga sheekeeyeen. waxaa suuragal ah inay taasi saameyn ku yeelatay noloshiisa hore. waxa uuna ka carari jiray sheekeynteeda. waxa uu jeclaa luqadaha iyo injineerinka. waxa uu luqadaha ku bartay Switzerland kadibna waxa uu guuray Jarmalka. markii aan kula kulmay Jarmalka ma uusan xiisaynin siyaasadda kaliya wuxuu iskaga raaxaysanayay noloshiisa. wax kastana waxa uu qaatay siday u yimaadaan. waxaan aad ula yaabay sida wiilka xasan salaam uu sidan u ahaan karo. waxa uu ku soo noqday Qaahira laakiin hooyo kuma faraxsanin inuu sidaas sameeyo waqtigaas. kadib waxaa bilowday kacdoonka Falastiiniyiinta inkastoo aan weli si fiican loo aqoon. Falastiiniyiintii wadaniyiinta ah ee asaasay ururka loo yaqaan PLO ee Fatah waxaa ka mid ah Yaasir Carafaad oo lagu naanaysi jiray Abu Camaar. dhammaan aasaasiyaashii Fatah waxaa saldhig u ahayd Masar sida Carafaad, Khaliil Al-Wasiir iyo Saalax Qalaf. ha yeeshee waxay u guureen Kuwait 1957. Kuwait waxay ku qoreen barnaamijkii xisbiga nidaamka gudaha. waxaa kaloo ay ku dhawaaqeen magaca ururka iyagoo ku magacaabay
dhaqdhaqaaqa ummadeed ee xoreynta Falastiiniyiinta ama Fatah. Waxaan xasuustaa Saalax Qalaf iyo Abu Saalax oo na soo booqday oo nagu yiri ma rumaysan karno in wiilka Xasan Salaamah uusan weli ku biirin kacdoonka. Waan yaabay markii labaad ee aan la kulmo, waxa uu ahaa mid ka bedelan sidii hore. Waxa uu ururka Fatah uga biiray Qaahira sanadkii 1963 waxaana ku weydaaday sanadkii 1964 isla markiiba wuxuu ka shaqaynayay waaxda shacbiga ee ururka PLO. Ururka PLO marnaba uma suuragelin inay xiriir la yeelato madaxweynihii Masar Jamaal Cabdinaasir. Waxaase soo dhaweeyay ururka PLO dowladda Syria. Waxayse wax kasta isbedeleen kadib sanadkii 1967 markii Carabta laga adkaaday dagaalkii 1967 ee dib loo abaabulay ururka Fatah. Bilowgii hore waxa uu ahaa 1 Janaayo sanadkii 1965. Sanadkii 1967 Yaasir Carafaad qudhiisa ayaa galay daanta galbeed isagoo isku howlay habeynta Fatah si ay u hesho hub. Waxa uu bilaabay inuu mar kale la xiriiro Jamaal Cabdinaasir. Wixii ka dambeeyay 1967 Cabdinaasir waxa uu daneynayay cid kasta oo la dagaalaysa Israa'iil waxaana shaqaynayay xiriiradaas ilaa xad fiican. 1968 Yaasir Carafaad iyo wafdigiisa ayaa la kulmay Cabdinaasir waxayna u sharaxeen wax kasta isaguna waa u gartay qorshahooda. Naasir waxa uu sheegay in kacdoonka Falastiiniyiinta uu dhashay si uu jiro waqti badan. Yaasir Carafaad ayaa ku jawaabay oraahda caanka baxday waxay u dhalatay si ay baaqi u ahaato una guulaysato. Waqtigaas Jamaal Cabdinaasir waxa uu siiyey tababar, hub iyo taageero siyaasadeed. Tababaro badan ayaa la qabtay xilligaas waxaana ka mid ahaa dadkii ka faa'iidaystay Cali Xasan Salaamah. Waxaan aadnay tababarka amni inagoo aan lahayn wax khibrad ah hore. Bilowgii waxaan ka baqnay in wax kasta adkaan doonaan hase ahaatee waxaan la yaabay 3 qodob oo ay noo sheegeen. Midka koowaad inaysan bari doonin wax cusub. Waxaan dib idinkugu celin doonaa carruurnimadiina. Wax kasta oo aad samayn jirteen markaad carruur ahaydeen ayaad hadda samaynaysaan idinkoo waaweyn. Maxaad samaynaysaan haddii aad wax qaladaan markaasna aad rabtaan inaan qof ogaan? Waad qarinaysaan taasina waa hawl amni. Tababarkaas wuxuu ahaa mid isbedel ku keenay Abu Xasan Salaamah. Waxaa laga soo dilacsiiyey waaxda shacbiga waxaana la geeyey waaxda la socodka oo mas'uul ka ahayd dabagalka cadowga iyo ka hortagga basaasnimada. Hay'adda la socodka waxaa aasaasay Saalax Qalaf waxaana ku-xigeen looga dhigay Cali Xasan Salaamah. Marka dambe xaruntii la socodka ayaa ka guurtay Qaahira oo Ammaan Jordan saldhigatay. Markaan nimid Ammaan waxaa ku-xigeenka ahaa Cali Xasan. Waan qaybsanay doorarkeena inagoo oo bilownay inaan ku shaqeyno Urdun. Waxaan sameynay waaxo kala duwan sida ka hortagga basaasida. Waxa uu sameeyey ciidan gaar ah oo ururku leeyahay wuxuuna jeclaa arrimaha militariga. Bishii Maarso sanadkii 1963 dagaalyahanada Falastiiniyiinta ee loo yaqaano Fidaa'iyiinta ayaa ka barbar dagaalamay ciidanka Jordan kadib markii ciidanka Israa'iil ay weerar ku qaadeen xero PLO leedahay oo ku taalla magaalada Karama. Xeradii waa la qabsaday heshiis ciidanka Israa'iil ayay ka soo gaartay khasaare lixaad leh waxaana dagaalka uu noqday mid si weyn looga bogaadiyo dunida Carabta. Taasi waxay ahayd waqti isbedel weyn. Kadib dagaalkii Karama ee 1963 dhalinyarada badan ayaa si degdeg ah ugu biirtay ururkii Fatah ee fadhigiisu ahaa Jordan. Waxay ka imaanayeen Ciraaq, Syria, xataa Lubnaan. Fatah waxay noqotay mid shacbiyad badan. Kaliya Falastiiniyiinta ma ahayn iyo xataa golayaasha siyaasadeed ee Jordan. Xilligaas ayuu nidaamka Jordan go'aansaday inuu darbo xooggan ku dhufto wax iska caabinta Falastiiniyiinta. Nidaamku wuxuu ka baqayay koox hubeysan oo ku sugan gudaha Jordan taasi oo keeni karta inay go'doomiso dalkaas. Fatah iyo PLO ayaa si tartiib ah uga xoogeystay Jordan waxaana qaarkood ay bilaabeen inay ku baaqaan in la afgambiyo nidaamka Boqor Xuseen. Bartamihii Sebtembar sanadkii 1970 Boqor Xuseen ayaa go'aansaday inuu ka ciiriyo Fidaa'iyiinta Jordan. Ciidamadiisa ayaa hareereeyay magaalooyinka ay ku badan yihiin PLO sida Ammaan iyo Irbid waxayna weerar ku qaadeen dagaalyahanadii Fidaa'iyiinta. Dhacdadaas oo loo yaqaano Sebtembartii Madoobeed. 3 sano ayay Jordan ku qaadatay in dalkeeda ka saarto maleeshiyaadkaas taas oo keentay in PLO ay diranto in boqortooyada Jordan ay dhabarka ka wareentay. Sebtembar 1970 Cali Xasan Salaamah waxa uu mas'uul ka ahaa amniga Yaasir Carafaad iyo gacan-yarayaashiisa. Guud ahaan Sebtembartii Madoobeed wuxuu gacanta ku hayay amnigiisa isagoo u raacay Qaahira. Shirka Jaamacadda Carabta ayaa lagu qabtay Qaahira waxaana lagu gaaray heshiis. Natiijada heshiiska ka dhalatay ayaa dhigaysay in PLO ay ka baxdo magaalooyinka Jordan oo dib ay ugu gurto xuduudda Jordan iyo Falastiin. Kadib Sebtembartii Madoobeed dadku waxay uga falceliyeen si aad u daran. Dadku waxay lahaayeen waxaan qiyaamay dadkeena iyo kuwa aan jeclayn. Yuhuudna ma qiyaamin waxaan qiyaamay Carab. Rabshadihii ka dhacay oo lagu daray guddiga Carabta ee la sameeyey Sebtembar waxay keentay in nagala waayo safkii ku sii jeeday cadowga taas oo keentay inayna xanuujiso go'aan ku gaarnay inaan aarsano
cali xasan salaama wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee ka hadla argudasho. Waxaan joognay Syria oo aan ku lahayn kulanka golaha kacaanka, wuxuuna helay fursad uu ku yimaado. Wuxuu yidhi waan kuu baahanahay. Wuxuu igu qaaday baabuurkii isagoo i geeyey goob ka fog meeshii aan joognay. Wuxuu ii sheegay inuusan xamili karin waxa dhacay, sidaas darteedna ay lagama maarmaan tahay in loo argudo shuhaadadan iyo kacdoonka. Waxaan weydiiyey waxay qorshayaashiisu yihiin. Wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan sameeyo ururka Sebtembartii Madoobeed. Waxaan weydiiyey maxaa u sameynaya. Wuxuu yidhi inaan dilno dhammaan intana khiyaantay. Sebtembartii Madoobeed waxay ahayd koox qarsooneed oo ka tirsan ururka Fatax. Waxay ku soo shaabaxday Beirut kadib markii warbaahinta adeegsatay Sebtembartii Madoobeed. Mid ka mid ah howlgalladii caanka baxay ayaa ahaa dilkii Wasfi al-Taal ee Qaahira. Wasfi al-Taal ayaa ahaa ra'iisul wasaarihii Jordan markii ay dhacaysay Sebtembartii Madoobeed sanadkii 1970. Cali xasan salaama ayaa Wasfi al-Taal u arkayay inuu yahay astaan u taagan khiyaanada Carabta. Horay bay wana hoojiseen, nama aadan difaacin oona ilaalin. Waxaan awoodnaa inaan meel kasta gaarno. Fatax xilligaas waxay noqotay awood siyaasadeed xataa kadib markay u guurtay Lubnaan 1972. Waxay Lubnaan ku noqotay awood siyaasadeed oo xulafo ah dhaqdhaqaaqa wadaniga ee Lubnaan. Waxay markaas kadib bilowday inay qabtaan xeerarka dhanka Carbeed iyo mid heer caalami. Sidaas darteed howlgalka qarsoodiga ah Fatax wuxuu ka badbaadiyay fadeexo. Waxay si fudud u sheegan kartay inaysan Fatax ahayn oo ay ahayd koox aan hoos imaan. Siyaasadda Fatax waqtigaas waxay ahayd inaan la sheegin howlgal aysan Israa'iil ku dhawaaqin.